السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سند وعنونكسن هل كان نقل سعوتان وبرتان يوتيوب كلين هاي سيت هي برودكشن ونيسو قد بنت حقها مهم كاي سمارت اكاونتسكا اما حسابات كجناحسكا يا عصرية waxaan bilaabi doonaa koorso cusub koorsada sida halkan ka muuqata cashirka koobaad waxa weeyaan a basic course ayaanu bixinay cashirka koobaad ayaa ka bilaabmaya koorsaduna waa cookbook software oo ah course 2026 anigoo ah engineer Mahdi Setaya ayaa la socodsiin doona aan gudagalnaa cashirkeena koobaad intaynan u gudagelin waxaynu kaasin doonaa waxoogaa macluumaad oo ku saabsan waa maxay QuickBook waa software xisaabeed oo lagu talagalay xisaabinta ganacsiga oo loo yaqaano accounting software oo ka caawinaya diyaarinta biilasha iyo qaansheegaha ama invoiceska ganacsigaaga la socodka lacagaha soo gala ganacsigaaga iyo kuwa ka baxa oo afka qalaadna loo yaqaano income and expenses warbixin xisaabeed ayuu ku siinayaa marka aad u baahato oo loo yaqaano reports sidoo kale maareynta macaamiisha iyo alaabaha ayuu ku wanaajinayaa marka adeegsanayso software-kan haddaba software-kan marka u horeysa wuxuu kaaga baahan yahay marka computer haysatid inaad ku soo shubato computer-kaaga kadib marka computer-kaaga ku shubto ama ku setup gareyso ee uu ku soo dhamaado waad furaysaa QuickBook sida halkan ka muuqato hadda halkan baa naga noo yaal maxaan markaad ku shubto waad furaysaa double click ayaad siinaysaa kadib waa uu ku soo kici doonaa markuu ku soo kacayo sidan ayuu shaashada ku soo qorayaa soo leh welcome opening QuickBook desktop sida markuu u soo kacana waxaynu gudagali doonaa isla markaasi QuickBook software-ka cashirkiisa koobaad ayaynu ku bilaabi doono halkan ayaan hore uga sii socon doona waaye QuickBook 2024 markuu sida uu kugu soo qoro shaashadaada waa markuu halkii ugu dambeysay uu marayo inuu markaasi software-kaasi ku furmo markuu noo furmana waxaanu ugu xigi doonaa abuurista shirkad oo ah qaabka aynu shirkad u soo samaysan karno ilaa waxay doonaynaa inaynu bilowno course cusub oo markaasi base ilaa dhamaada base waxa weeyaan halka koobaad ilaa iyo halka markaas ugu talagalnay oo ka koobnaan doonto 3 cashar haddaba casharka koobaad markuu saa kugu soo kaco waxaad ka bilaabi doontaa talaabada koobaad in la samaysto new company file saad samaysato waxaad dooran doontaa markuu shaashada saa kugu soo dhigo halka ugu hooseysa ay ku qoran tahay another option ayaa falaadha furi doontaa waxaad ka sii dooran doontaa halka u hooseysa ay ku qoran tahay advanced setup hal marka siiso daaqadan yeriska ayaa halka ima doonta talaabadaasi waa talaabada labaad ee noqon doonta marka daaqadan ku timaado lahayd easy step interview talaabooyin fududa marka aad taagan tahay ama wareysi talaabo fududa waxa ku bilaabi doonaa in aad markaasi buuxiso xogta ganacsigaaga oo ugu horeyso magaca shirkadda sida ciwaanka ku qoran enter your company information macluumaadka shirkadaada geli ayaa ku qoran macluumaadka shirkadda waxaan ugu horeysinaa markaasi magaceeda oo ah shirkad la yiraahdo Amel Trading Company markaas soo gaabino waxa taabanaysaa badhada la yiraahdo escape automatically legal name-ka halkan ayuu iman doonaa escape marka yiraahdo sida uu horjoogo automatically halkan buu soo galay magaci taxi ID-ga waa iska dhaafin street-ka halka ku qorantay waxaad ku qori doontaa halka ugu horeysa waxa weeyaan Burco Somaliland waaye Burco Somaliland waxa si raacanaysaa meesha laga helo ama waxaad ku qoraysaa telefoonada ayaa khaas uga dhigtaa xisab telefoonka lagala soo xiriyo waxa weeyaan 76661 mobile ama WhatsApp kana waxaad ka dhiganaysaa lambarka 4237270
sida markuu qortid halka waxa iman doona marjanada meherada merchantiga meherada ayaa halka ku qoran doonta merchantiga meherada ayaa qoran doonta waa 45454535 walaal dahabta ayaa raaci doonta dahabtana waxa la doontaa waxa weeyaan 77717 inta marka qortid countryga waxa laga doonayaa cityga joogto waa burco weeyaan burco Somaliland marka soo qortid halkan countryga ayaa soo dooranaysaa hadad estaatid oo aan ku jirin wadankaagu halkaas waxaad ka dooranaysaa oo ah anada telefoonka ugu muhiimsan ayaa halkan gelin doonta 4237270 marka u gelisid waxaad doontaa next step ku xiga waxaad dooranaysaa select your industry bal ganacsigaagu noocu yahay ayaa dooranaysaa anigu jiida ayaan taaban doonaa general product based business ayaan ku saleynayn halka marka maraysi wuxuu ku leeyahay sole proprietorship so partnership ka ayaan dooranayn oo habka ugu saxan sole kana waa dooran kartaa marka qof tahay partnership ka ayaan dooranaa nagas ayaan leenahay bishan bilaabina bishan January baan bilaabina password ayaa laga baahiyay passwordkaagu waa hada password xoogan marka passwordkan uu gashanayna si public waxa weeyaan m10 weynaysiinayna m10 u horeysa capital ka dhigayna deetana mahdi ayaan oranay mahdi waxa ku xigsiinaa 2@2055 hadana waa ku soo noqonnaa m10 capital ka dhig mahdi qor @2055 passwordkeenu saa markuu yahay your password is case sensitive next ayaan leenahay next marka naano wuxuu ku leeyahay create company file miyaad abuuraysaa fileka shirkadda yes waa next baronaya halkan dhiganayo company fileka uu dhigay ayaan dhaameel trading company u deynaya hadda waxay sameysmaysaa arsiga ka aragtiin creating new company file please wait waxa ku sameysmaya file cusub oo shirkadeed markaas fadlan sug ayuu soo qoraya boqolkiiba konton ayaa maraya boqolkiiba konton kale ayaa haray weynay sugaynaa inta yar ee shirkadu ay ka gudbayso halka hadda ay marayso creating ahaan halka marka soo gaarnaa customizing cookbook for your business next ayaan leenahay halkaas ayay ka bilaabmaysaa su'aalaha system interview-ga ugu badan su'aasha koobaad what do you sell maxaad iibinaysaa hadda selected waxaya surface only in adeeg kaliya bixiyo such as rentals ka kamida gym ka kamida way surface hire extended surface ka kamida event services ka construction and labor ayaa kamida marka surface kaliya ma bixiyo broad kaliya ma bixiyo both labadaba surfaces and products ayaa leeyahay next ayaan oranayaa su'aasha ku xigta waxa weeyaan do you charge sales tax markuu iibkaaga socdo miyaad ku charge garanaysaa wax loo yaqaan cashuuraha bale no oo ah inaan iska diiday taasi do you want me to create statements in cookbook yes ayaan leeyahay statement in kusameysto cookbook tracking customer order yes man ku xiga waxa weeyaan using statement kana yes ku xiga waxa weeye using processing invoicing yes ku xiga waxa weeyaan managing bills yes dawda ku xiga waxa weeye tracking inventory yes usoo ku xiga waxa weeyaan tracking time yes bale ka u dambeeya waxa weeyaan do you have employee shaqaale ma haysataa hawan haysta shaqaale ka u sareeya mar walba tigtasaar deetana waxa tiraahdaa negas hadda waxa soo dhamaaday halkii ugu dambeysay waan mareen
ma beginning sanadkaas kasoo bilaabaysa kowda bisha maalinta maraysa ayaan ka bilaabay way halka ugu dambeysay go to setup waxa weeyaan halkii ugu dambeysay oo kan congratulations go setup ku yiri hadda waxa si toos ah noogu samaysmay shirkadeena aynu markaas u adeegsan doono ganacsigeena ya hadda si toos ah creative halka markuu soo gaaro waxa oranaysaa halka ugu dambaysa ay ku qorantay start working marka tiraahdo waxa weeyaan in uu shaqo diyaar u yahay QuickBook xilligani waa Damel Trading Company inay si toos ah ugu diyaar garowday in ay markaasi shaqadeeda ay bilaabato loo yaqaan home haddaba home ayaa kala baxda laba oo kala baxda qaybta home leeyahay qaybta insight leeyahay insight iyo home waa laba muhiim ah oo QuickBook ka wada tirsan marka casharadeena dambe ayaynu ku qaadan doonaa sida insight iyo home u wada shaqeeyaan balse casharadeenu waxay noogu socon doonaan si tartiib ah ama talaabo intaan ku kulmi doono casharka kan ku xiga oo noqonaya casharka labaad casharkeena koobaad ee ahaa qaabka loo soo sameeyo waxa loo yaqaano company file halkaas noogu jooga haddii aad ka heshay casharkeenan commentiga noogu dhaaf adigoo dhiirigelin nooga soo dhigayo wixii aad markaasi jeceshahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.